بسم الله الرحمن الرحيم وتيفي قضية تيفي أي بي كي أم waxaan aad maanta ugu hambalyeeynaa golaha baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyo danta guud oo lagu soo wada laabtay sidaan idinkaga saadaaliyay fiidiyowgii hore iftiin ayaa Soomaaliya u huraayo way dhamaatay muxaafid way dhamaatay mucaarid waxaanu nahay hal waxaa loo jahaysan yahay waa dimuqraadiyad iyo doorasho mahadsanid madaxweyne howsha waxaa inoo wadaya ra-iisul wasaaraha waxaana sida ugu dhaqsaha badan ugu baaqaya Deni Axmed Madoobe iyo maaragtay inay kasoo qayb galaan shirka iyo madaxda maamulada xitaa lama tagayo teendhada waxaanu tagaynaa madaxtooyada aniga dalkan u taliyo farmaajo ayaa la hor fariisanayaa halkaasaana lagu dhammaynayaa wax tagaya teendhana ma jiraan waxaana rabnaa inaan tusno caalamka inaan fikir ku kala gadawinsanaynayn ee wax cadowtinimo ayna dhex taalin Soomaalidu ma laha calool ku qaad waxaan doonayaa musharaxiinta badbaado qaran Deni Axmed Madoobe ra-iisul wasaaraha maamulka inay madaxtooyada iyagoo qoslaya ihtifiyada caalamiga ka daawadaan iyadoo gacmaha la haysto way dhamaatay muxaafid iyo mucaarad farmaajo waa muwaadin Soomaaliyeed oo u tartami kara madaxweynaha isaga maana nabacnayn waxaanu farmaajo kursiga isaga isku kali yeelay ayaan tusaynay inuu Soomaali wada leedahay waxaana Soomaali u dhaxeeyo haddana kursigii banaankaas u dhigay waxaan leeyahay mar kaleeto ciidamada qalabka sida maamulada ra-iisul wasaaraha ku noqdo meelihiini madaxweyne waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha inuu degmooyinkii sidii ay u hayeen loogu daayo wax isdabagala ma jirto wax muxaafid iyo ma jirto waxaan rabaa inaan arko General John Sadiq John oo madaxtooyada joogo farmaajo wada fadhiyaan shaaha wada cabayaan waxaan doonayaa askari kasta meesha joogay inaanan wax uqdad iyo tabarraac ma jirto uqdad way dhamaatay caafimaad Soomaali weyn shanta Soomaaliyeed kursigaas iyo musharaxnimada waa loo sameeyaa ilaahay hana siiya caadil hadduu farmaajo soo laabto waa la shaqaynaynaa haddii madaxda kale ku guulaysto waa la shaqaynaynaa waa maalin weyn oo waaga baryay kala soco horay ayaa idin sheegay haddii inta ay dhacdana wallaahi billaahi tallaahi dimuqraadiyad aan la gaarin baan gaaraynaa ciidankeenu wuxuu noqday ciidan ilaalin doona dastuurka danistahna ka hor imaan doona waa guul iyo gobonimo waxaan leenahay mar dambe ma jirto muxaafid iyo mucaarad sida madaxweynaha uu sheegay waa danta guud inaan ka wada shaqeyno amniga waa in la xoojiyo siyaasadda iyo afkaartii waxay ahayd keliya aan doorasho inaanu dhigano doorashadaana waa wax caqabadayaa lagu xirin waxaan doonayaa sida ugu dhaqsaha badan inay ku dhawaaqaan Axmed Madoobe Deni maamulada dhan inay soo dhaweeyaan ayaan inta dhammaantii idinka codsanayaa inta maqlayso oo dhan way dhamaatay international community siyaasaadka waa dhamaatay farmaajo saayir mucaarada saayir hal farbaana Soomaaliya waa hal maanta waa guul iyo gobonimo waxa aan soconana waa danta guud waxaan ku soo gabagabeynayaa niyuusyada CBB muxaafid iyo mucaarad aan ka shaqeyna danta guud waxaan leenahay dalka iyo dadka iyo diinta taa aan ilaalsano wassalaamu calaykum ku dhig cusub ayaan sameeyay hal isticmaala ereygan ah danta guud iyo doorasho hal ku dhigaynaga waa intaas kulligeen hal baanu nahay muxaafid iyo mucaarad waxaanu fulay tareenkii danta guud iyo doorasho in la qabto xalaal oo ciddii ku soo baxdo farmaajaha soo laabto ama musharaxiinta ha yimaada ama nin cusub waa la wada shaqaynaynaa waxaan leeyahay mar kaleeto mashruucan cusub ee gacanta isa saarka waa walaalnimo iscafis iyo midnimo guud aan tusna caalamka inaanu nahay hal far madaxweyne muxaafid iyo mucaarad waxaanu ka shaqaynaynaa danta guud ku soo bir qadiyada TV DKM oo ka shaqayn doonto danta guud iyo doorasho Soomaaliya waa hal wixii tagay way tageen uqdad ma jirto wixii hadda ka bilaabana kugu shan nabada iscafiska iyo walaaltinimo ayaan ku soo dhamaynay